wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay waxaan arkaa maydinka ma insiba ma jinnalo aloolayba ibame oname ibame qowdhano waxaad maanta raadinaysaan lixdankii baa xuseen oo faarax idin kala dardaarmay wuxuu yidhi intiinnii kaloo maqan inaad xamar israacdaan haddaad la oggolaateen idinkoo itaal daran waa la arki doonaa iriddu way bannaan tahay haddii aad ilowdeen waa iga ogaysiis wartuu ku sii daray ayuunbaan imaka ogaannay ee ahayd eedaadka soo mara umulbaa ilowdee allow sahal amuuraha adaa noo aqoone war nimanyow wiil iyo hooyadiis reer waaberi ah ayaa is waraystay wiilkii baa wuxuu yidhi ayaamow baaba shariifow waa ku daayi maamadii baa waxay tidhaahday keerow warkaas ma qurxana yaa sheegi wiilkiina waxa uu yidhaahday ayaamow idaacamanka dhan aska hadli baaba shariif aabba ka hadlo maxume waxaa sidhi mataqaanta doorashaalka xitaa waa ka bixi maamadii waxay tidhaahday us baaba shariifa mawaashti almiina doorashaalka lee maxaasuu hijiri waayey kadibna ayadoo madaxa haysata waxay dhahday arnawad iyo nolol maxaa saas u sameeyan wiilkii baadana wuxuu yidhi ayaamow mar haddis baaba shariifa uu kidaayi axmeday madoowe axmeday xaaf iyo hebel naftumaas ahaay mise gaas waa ku daayeen war adiga iyo kuba xayndaabka af soomaaligaad ka baxsantiin war kale imaka ma wuxuu ku hadlaya afindi warya dagonka kanow hiindaabka af soomaali mar hori dumi because please I am not as gifty yalla kadari war adiga le laga keenay afkan qaldano because my weli dhahay waruna hadii dadkeena hal kalmada kale wala isan gasteen I want the day yakalena hay dhawaateen warada waa ka sii darayaan maqli jiray adigu waa ka soo daraysaan waliba warnimayo anu waxaan dhihi lahaa xaaladaha cakiran ee waqtigu soo celcelinayo mar haddaan calaamiyo sumado lagu cadaynaynin cirfiid iyo cunsuri waalan baa caasha noo galaye cilanaadka dhiigyacabku wado oon ka cabanayno cayayaanka daba yaacay iyo cuurku waa ubade hadba cunug dadkii soo korsaday caasiyaa lume markaasaa cadaab loo horkacay ka ceshan maayaane oo la yidhi cibaadaduba waa caalamka halaage caqiidana waxaa looga dhigay caabudaad kale war ciyaalka uu sheegayay ninkaanu maanta jilibay isku galeen kabtaydii ma aragtaa ka dhacday daacashaad noqon rabtaa iyo takfiiraad noqon rabtaa isku dirreena layidhi marka anigu waxaan la yaabanahay nimanku waa isku ukaannamide maxay isku kala soocayaan war indhahaannay ka garteen oo haddii wax gala ay waayeen inay ayaku isgalaan waa gar warniyow haddaalina waxay nagu hayeen bay isku hayaan warnimiyo ani warsiin haaye lankoo habarto guursidii madusa hoohidii idamayka aragay sadde koofiya oo miiska fuula markaasoo bilaamayti su'aali meeraysa diidun koofiya may haayan koofidun korayti meertay lankay koowaad olla oo dili koofidiisu waarti koofidun lamaad meertay lankay lamaad oo shilka dhimadii waarti koofid saddexaad meertay hartigi kay saddexaad oo hanuunka geeriyoodii waarti lankuusuna lang aase waxa ay koofi afaraada meel ansaari koofiduna magac yaani hatakiin sheegay oo ari may eraase hartigi kay afaraad oo la faajay bahsadii waa eraaseri marka ma in la jeede Soomaali tabti iyo hatil kuwada hadii lanka dhaafna niman badan naga brinka ruureeyaan niman badan la faajo la fokadaayaan weligay koofi shil ku dhimatay ma maqal niman horta kalamaan kaligeen maaha baarlamaanku waa naga kalamaansan yihiin war waa aqalka sare waana duqowshana xaa meel sare saaray war waa tababarihiinka aamus waraadha mawjad maxaa u noqotaan bad ah doodii baarlamaanka shalay oo bayle iyo beesadu soo hordhiga looga doodayey kalamaan kulul bay ahayd wasiiradaana ku badnaaya la yidhi baarlamaanka shalay war doodda baarlamaanka waxay isu beddeshay aan kuwaalay hayadhe dhinac waxay dhaheen beesada aan kordhinayno ciidamadaa la siinayaa dhinacna waxay dhaheen beesadaad kordhinaysiin maamul goboleedyada lagu dumina ee ciidanka ha ku been abuuranina beesada ciidanka loo wada
ciddii ansixin diidda ciidanku may soo qabqabtaan dasada haddii maamul goboleedyada lagu duminayo ma ciidamadu soo qabtaan war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi isbahaysiga eletariya soomaaliya iyo etoobiya dan kale laga leeyahay soomaaliya loogu danayn maayo awal ma soomaaliya keliyaha loo danayn lahay adduunyadu way isku daraysanaysaa dan gaariya mid caamaba qalqigu way iscuskanayaay war adiga difaaca kaaga dhuuntay war cabdiraxmaan shukuur mucaarad laanu ahay aqoonsi ma soo hele waladan somalilan isbahaysiga la sheegayo aad bay uga cabanaysaa aqoonsigii aan inta badan raadinaynay wuxuu yidhi faysal cali waraabe albaabadan nalaga soo xidhay waxaanuu yidhi soomaaliya waxa qabsaday carruur yaryaroo 15 jirra miidhan ah oo nooga fara dhuuluuba siyaasadda caalamkaba etoobiyadii aan wala ahayn ee la odhan jiray abasiiniya waabay nooga hormareenba marka wuxuu yidhi odayaasha ritaayirka ah ha ka kacaan meesha oo jiil yaryar ha qabsado jiilka la jaan qaada warwar maayo sida xilligii gooni ugoosadku waa dhammaaday haddaaba geeska afrika oo dhan baa midoobay gaarigaan iyuu kaa tegi war cadaadada dhuusamarre ma la mideeyey war nin baa wuxuu yidhi innagoon gaalkacya hal maayar u samayn miyaan muqdishoya hargeysa madaxweyne u samayn karnaa war risaaladu kuma gaarine cabdisababiya muqdishoaan hal madaxweyne u samaynaynaa adna hargeysaad ka hadlaysa warnimiyo ani warsinhaaye gobolka laleeyey koonfur galbeed oo baydhawo janaa'isan gorodaasan nimanga galnyame lugaka walaageesiin ari aw shariifni gobolka intaliya ay walku diri reerkina maylika dijiyo ee geedagaasa degaana bariha ka degaana baradambiha ka kadheer madaana salaadiya ka haana laleeye doorashadii meelilan ayimini boos iyo mal sheego hay war doorashadii koonfur galbeed ma awr ciir lagu sumayba war guddoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed oo madaxweynaha loogu daray meeluu wax geeyey muu leeyahay war meeluswaljeey mu haysan dadka garwada u haysanya wareedha waxaa la yidhi jikadiiyo kushiinkiiyo fadhigiiyo kuraastiiyo kobta jiifka laga dhigay kirligiiyo falaaskiiyo koobka iyo xeerada korka lagama taabtee kululaa allahayow waxaan noo karsamayaa waxaan taa ku darayaa adigaa kariimow koonkaan abuurtae naga kori allahayow dhibka iyo kadeedkaba niyow magaaladaasaasan ku leelna ama furugtii saaxiibkay war jaamacdheer falaastan iyo kildhiyadanu sheegaya ma hudheel buu furanayaa war wasaaradihii waxaa la yidhi qaar badan ayaantan korontadu ka maqanta qaarkoodna waxay ku marmarsiiroodana la yidhi intaan beyle beesada u gacan gelin korontada waa shida karnay war beesa aan xisaabsanayn ayay markii hore haysteena hadda waxbaa la xisaabinaya warnimiyaw meelililey baraawa dabara lukufsadyaa laari madii lukufsaday ka damba yaadina marji dhablisi ilaa iyo ka dhimato la deersiyaa laari war gobolkaas bani aadan muroogoba may wala meelin iska saadi yeyntii isan arajirteenga waraadha baraawe sow caasimadii koonfur galbeed ma ahayn waa maxay waxa ka sheegaysaa wari halaalahaaytay fafaniinkiin adeeri waradhaaya gaalkacyo bannaanbaxa ka dhacay muxuu ku saabsan yahay dukaankii faa askareeba dib linfurufadahay war madaxweynihii hirshabeelle mee waradhaa waxaa amiin caamir soo sawiray axmed madoobe jubbaland dhuxul ka shidanaya iyadii dhima dhuxul ka dhigtay wuxuuna yidhi haddii la rabo axmed dhuxul ha la iigu yeedho waa shaqadan waa qabanaya warniyo hadduu axmed madoobe sidaa yeelay cabdiweli gaasna ama buntland gaas ku shidaa nimanyo war heeda cabdiiley ayaa waxaa xabsiga ku booqday gabadha guddoomiyaha maxkamadda sare kadibna wuxuu yidhi anigu nin itoobiyaan ahay waana ku faraxsanahay itoobiyanimadayda xabsiga inaa isaga sii jirana waa rabaa haddii layga daayana waa kasii fiican tahay marka odaga olyadii biyaha inuu isku dara ayaan u malaynayaa oo adeer xabsiga bandheera may keenaan annaga liinta cabsiin layne warwarkiinnu garaar buu soo xasuusiyey nin beri hore yidhi wuxuu yidhi arba waxayla talaate iminkaannu islaamnayo eegadeennii horeeta ileen waannu ilownaya amxaaraannu ahayn war awowgii la gubsidaa maahan dhegayso eegga korkaa looga riday inay ilaykiis ka xoog badan inta oromo lagu soo kacshaa xaaja kow tahay kaawada ku xidhan iyo biraha lagu katiineeyey ugu kaadi eebbow xumaan waa kasbanayeen warniyow biyoyoone oolidaaska dartay qalbadhagahna amanto habsiga lahkadhiya tahay jabuuti allaafyadohay somalilan muxuu tegi waayey war muqdisho u soo socdaa war ma haysaane toogada qalabdheex hadduu muqdisho yimaado etoobiya waa cilweyse yurubaa loo dhiibaa yurub war maadaa u dhiibi kara togi dhiibaan waryaan baarlamaanka la horgeynay saaciidada madaxweynaha war naga daayaniyow